Yeygu waxa uu sida dadka leeyahay maxaarim oo ma uu guursado walaashiis iyo hooyadiis sida xayawaanada kale. dhanka kalsoonida guurkana aad ayuu ugu xeel dheer yahay oo noloshiisa oo dhan ninka yeyga ahi xaliyay ayuu la qaataa. haddii ay ka dhimatana mardaba ma uu guursado oo kelinimo ayuu nolosha ku dhamaystaa. haddii mid ka mid ah lamaanuhu dhinto kan kale muddo 3 bilood ah ilaa ay sanad ayuu u baroor diiqaa oo habeen iyo maalin u qaylinaya. mararka qaarna waaba uu isdilaa oo nolosha ayuu isdhaafiyaa. marka uu doonayo yeygu inuu yeeyad guursado waa inuu xayntiisa ka dhex baxaa oo xayn kale ka guursada lamaanaha uu doonayo inuu guursado oo uu xiriir kala sameeyo. yeygu marka uu waalidkiis gababo waa uu samafalaa oo inta uu meel dejiyo ayuu u waarsi tagaa. halkaana waxa uu keenaa cuntadiisa waxaana lagu naanaysaa wiilka baariga ah. yeygu ma cuna bakhtiga waxa uu u dhaqmaa sida boqortooyooyinka oo kale waana xayawaan isla weyn oo sharaftiisa iyo karaamadiisa badanaa ilaashada. yeydu marka ay safrayaan oo ay safar galayaan waxay ugu horumariyaan saddexda ugu taagta daran uguna liita qoyska inta caadiga ahna waa ay daba gashaa. sidoo kale hogaamiyaha kooxdu waxa uu maraa xagga dambe isagoo ka difaacaya gadaal haddii lagu yimaado halkaasna ayuu ka maamulaa kooxda inteeda kale. yeygu marka uu seexanayo hal ilaa ayuu isku qabtaa ilna waa uu ka soo jeedaa. yeygu marka uu dhaawac soo gaaro ma qayliyo waana u aamusaa. marka uu dhimanayana geesinimo ayuu isbidaa iyo ragatinimo oo isaga oo cadowgiisa indho kulul ku eegaya ayuu dhintaa yeygu.